بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن daawadayaal meel kasta oo aad naga daawanaysaan halkani waa galbeed TV xaruntiisa magaalada Edmonton ee dalka Canada waxaan khadka Skype-ka ku wareysanay mudane Maxamed Cabdullaahi Obsi oo kamid ah siyaasiyiinta reer Awdal ku nool dalka Sweden waxaan ka wareysanaa xaaladda ba'an ee abaareed ee ku habsatay deegaanada Awdal mudane marka hore ku soo dhawow galbeed TV بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka hore ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan Cumar ugu mahadnaqayaa muxuu waraysiga aad igu yeedhay waana ku dhawahay galbeed TV mudane su'aasha ugu horeysa ee aan ku weydiinaa waxay tahay waxaad nooga warantaa xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada Awdal يعني محاسيد وعركتها سيد يعني ما عرفت سيد أنا عركها وحوي أخين هذا حنون بدن ومصيبه سومالي دو كنتي مركي دعاء سنة يسود سومالي دي وناك سنة معها مركي دعاء سنة يسوي حاجة بنشفت إله عليا أبار بان كام كان قال عليا أبار والله ودي معها ووضحها نور ما شفتوا عليا أبار هدي معها مد كستور معطي إسراعنا هذا الكوكب بدأ hadduu mid kugu yimaadana dee waxa weeye nolol jirta ka jirto marka xaaladaasi gobolada Awdal ka taagan iyo salal aad xaalad u adag weeye gurmadkoogu wax ka tari karo xaalad ka weyn xataa yani Somaliland inay wax ka tari karto xaalad ka weyn yani maaragtay in caalamka iyo hay'adaha iyo dawladda cid kasta oo yani maaragtay arintaas aragta in ay ka damqato oo ay yani la gaadho taakulayn insha Allah taala sidaas ayaan u arkaa xaaladda abaareed gobolkaas ama goboladaas Awdal iyo Salab su'aasha labaad ee aan rabo inaan ku weydiiyo mudane Maxamed waxa ay tahay shacabka reer Awdal sidee ay uga qayb qaateen masiibada abaaraha ee ku habsatay deegaanadooda سؤاشاس يعني ماركتي شعب كرير أوضل سيدي أيي وقر مدين مصيبة كنا هانتي انتي تمرتودا هي إن كبضنا وأنا رنكر وبقول كي والله بقول وذهبها كبر عربتي آدي بيتك وقدم قدين تذكر أول بي أوكرين لو ما كلا هارين ويل علماء محوها هوين دليارو عفور لو ما كلا هارين وحن أركي يعني عفور يرير ومحوها دي بريك الأساسي محوها دي روت كوي بيان كتر يتشوانا ده روتي كلو لي سيداس أيام محوها سيدا أي مركا وقول مدين رياضو سيداس وي آد بي وقول مدين كي halkii ugu dambeysay taageerta xoolihii dhamaadeen dadkii ay dhimashadii bilaabeen dadku mar kaliya ayay reer Awdal aad isla oogsadeen way kaceen kicitaanka ay kaceen wixii ay ururiyeen iyo nidaam ahaan kullay gudiga abaaraha gobolka oo niman culimo u badnaa oo bari hore yani maaragtay la sameeyay qoladaasina yani gudinimadoodii ayay iyaguna markiiba boorka ka jafeen way la soo kaceen nidaamku horaba ha isugu dibadhici waayo dhaliila way jirayaan laakiin wax dhaliil maanta loo fiirsado arrintaasi ma taagna oo yani maaragtay waxyaabo badan oo dadka yani maaragtay gobolka wixii dhibaato ka jirta yani gurmadka waxa laga yaabaa in weyn sidii markii horeba la lahaa yani meel la gaaro meel dadka socodkiisuba dhaafo meel gudiga iyo dadka taakulaynta wadaaba ay ag maraan waxyaabo badan oo sidaas loo taabanaya way jiraan laakiin wax hadda anigu aan wax ka soo qaadayo oo aan oranayo ma garanaysaa waxa noocaas dhacay ma runaantii ma jirto
allahuma ilaa yani maaragtay dee abaartu deegaanada way ku kala daran tahay sida muxuu ahaa guddiga abaaruhu sheegayeen. muxuu ahaa xoogna wuxuu u badan yahay iyo waxa taakulo iyo waxa la bixiyey iyo wixii la ururiyey iyo wixii soo gaadhayba wuxuu u badan yahay inay dhinaca galbeedka boorama marka la joogo in dhinaceega galbeedka ilaa xeeb inay muxuu ahaa dee xaggaas muxuu ahaa u bateen. marka laakiin dee abaartu ay muxuu ahaa siman tahay dad xeebtana laga soo wada noqday dhinaca bariga oo aan weli muxuu ahaa yani maaragtay taakuladaas aan muxuu ahaa oo dadku ay aada u cabaadayaan oo aan muxuu ahaa taakuladaas waxba gaadhin waa la sheegayaa ama dee fiidiyayaashay ka muuqataa. laakiin xoogu meesha daran ayaa muxuu ahaa dee muxuu ahaa hujuumkii iyo mawjadii iyo dhaqaaqii u horreeyay xaggaas ayuu muxuu ahaa u kacay. qurba joogtu iyagu kaalin intee leeg ayay ka qaateen gurmadka iyo sabata bixinta shacabka reer awdal ee ku dhimanaya deegaanada ay abaartu saamaysay? run ahaantii sidaa dadka guduhuba u kaceen bay dadka dibadduna u kaceen. sideen muxuu ahaa nidaam la islama helin weli, laakiin wax ururinta iyo ka qaybgalku aad buu u bilaabmay. wadamada qurbaha ee muxuu ahaa la joogo meel kasta ayay muxuu ahaa wixii ka bilaabmeen. si guud bay u bilaabmeen, si gaargaara bay u bilaabmeen, si kooxa bay u bilaabmeen. arrintaasina way socotaa, laakiin isku xidhkii iyo siday dabad wax uga soo gaadheen iyo guddiga abaaruhu weli iclaankoogu dee kuma jiro muxuu ahaa wixii soo gaadhay. waxyaabo badan oo baxay oo dabadda ka tegay waan ogahay, laakiin dee muxuu ahaa guddiga abaaruhu iclaankooga iyo siday muxuu ahaa wax usoo gaadheen iyo waxaas nidaamkaasi weli muxuu ahaa iskuma duba dhicin. marka waxa weeye qurba joogtu aad bay muxuu ahaa u kaceen, way dadaalayaan, laakiin waxaan waa wax ka xoog badan qurba joog iyo dadka gudaha jooga iyo intaba. marka gobolada yani gobolka awdal ama sela laleeyahay dee waa wax ka xoog badan oo muxuu ahaa aanay u berdhigi karin weeyi, laakiin intii tamarto. su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay maamulka Hargeysa gurmad intee leeg ayuu ka galay sabata bixinta dadka reer awdal ee ku qurbaxaya ama ku dhibaataysan guud ahaan deegaan masiibada? run ahaantii xukuumad ahaan muxuu ahaa abaaraha maamul ahaan yani maaragtay hadal badan oo caynkaasa, laakiin aniga iima muuqan. laakiin de haddaan laga tegin waxaa loo saaray oo loo magacaabay guddi uu guddoomiye ka yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka somaliland oo kasoo jeeda goboladaas awdal iyo salad ayaa loo xil saaray. wasiirada ugu muxuu ahaa dee muxuu ahaa wasaaradaha ugu tunka waaweyn muxuu ahaa xukumana waa ka qayb weeye. waa dad ganacsataa baa ku jira, culumaa ku jirta. guddigaasi website-o muxuu ahaa yani wax ka qorayay waa arkaynay, laakiin dee website-adaas iyo qoraalkaas muxuu ahaa yani wuxuu haddii aanu muxuu ahaa mediaha muxuu ahaa wax kasta iman karaa, inay dhaliila soo bixi karaan waa suuragal. laakiin dee qoraaladaas muxuu ahaa waan arkayay la sheegayo oo laleeyahay yani wixii muxuu ahaa gobolka marbaaba la yidhi waa laga reebay muxuu ahaa gobolada abaarta gobolka yani dhulka noocaas ee waxaasi ka dhacaya baa waxaa mediaha kusoo baxday waa laga reebay. muxuu ahaa war malaha suuragal maaha waan isnidhi, suuragal maaha waan isnidhi. laakiin dee muxuu ahaa taakulaynta muxuu ahaa yani marka ay gacanta ku hayeen wax badan oo sidaas oo ka gaadhay ma jirto. muxuu ahaa wax kale oo dee mediaha isaguna aada u socday oo muxuu ahaa dadku u badnaa dhalinyar iyo haween iyo si kasta iyo muxuu ahaa odayaal iyo dad walba ay ka hadleen oo mediaha aan ka arkaynay. dee dadka dabadda joogaa meeshii goobjoogu ma aha, laakiin waxaan dee mediaha soo galay baan muxuu ahaa baan ka faalinayna anagu. waxa weeye way jirtay in la yidhi ma garanaysaa dee meelana waxaa la geeyey 10 jeer baa lagu celiyey oo raashinkaa la gaadhsiiyo. guddiga guddoomiyaha uu ka yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulku
محوها سوماليلاند محوها ده دولك قارنا ده بينا لما قارسينين sidaasi way jirtay waan maqlayn run ahaantii anigu shakhsi ahaan qofsi ahaan ma wada rumaysanin laakiin markii hore laakiin imika markii xaalad muxuu ahaay faraha ka baxday oo dadkii dhimashadii ay badatay oo habqadkooda iyo socodkooda la yaabay oo wax la sameeyay la garan waayo oo reecawdal waxay u birdhigi karaana dadka shacabkii aanay ahayn arrintu waxaan arkay oo media ka arkayay oo aan dhageystay madaxweyne ku-xigeenka oo tagay muxuu ahaa meelaha ay xaaladuhu ugu adag yihiin oo unujeed oo kale muxuu ahaa markii uu shacbiga la hadlayay uu tagay run ahaantii wax la socday oo deeqa ama raashin ah oo uu hogaaminayay oo uu halkaa geeyay oo dadkaas muxuu ahaa aadka xaaladoodu halkaa marayso muxuu ahaa ka muuqday iima muuqano ma arag haddii aan hadalkiisa dhageystayna waxaan run ahaantii aad iyo aad uga naxay oo aan muxuu ahaa yani wax run ahaantii aan isiri maxaa aan u arkayo anigu hadalkaasi inuu yahay hadal aan muxuu ahaa gargaarkan iyo samato bixinta dadkan aan munaasib ku ahayn laakiin hadal siyaasadeed muxuu ahaa u dhigan oo madaxweynaha ku-xigeenka afkiisa ka soo baxay oo uu leeyahay dadkan muxuu ahaa dhimanaya ee gaajoonaya ee halkan socda ee muxuu ahaa dhibaataysani waa Ethiopian wallahi arrinkaas anigu kullayba qofsiyahan aad iyo aad baan uga naxay xataa hadday Ethiopian yihiin dadka muxuu ahaa kunujeed ama boon ama fadhixun ama muxuu ahaa xeebta habqankooda iyo dhimashadoodu isdaba taalo وكان أول شيء خلصينا يبدأنا نقبله أنا نقبله لكن ما جرى بدن تقول عليه شارك هذا الدولة كنا سومالي ده نقبله ما دام هناك سعون كريم لو حصل قرنين الجديد لو قرو وما قاعدشوا صدا وهايسو إن أي محوها إثيوبيان محوها كليا isagoo aan waxba sidin inuu muxuu ahaa dadkii dushoodii ku yiraahdo dadku waa Ethiopian baabuur baan u keenaynaa qaado Ethiopia oo maxaa la qaadayaa waa u dhimanayaa qof gaajoonaya cidna ma gaajaduna qola male dawlad gaaran ah ma laha haddii aan laga tagin Somaliland dawlad baan nahay bay oo xuduud bay leedahay mar hadday sidaas tahay madaxweyne ku-xigeenku dadka xuduudiisa ku jira ee ku gaajoonaya waa Ethiopia macnaheedu wuxuu dhacayaa waxba siin mayno wali wuxuu keenay iyo wuxuu wadayna ma jirin baabuurtii uu lahaa waan ku guraynaa wali muxuu ahaa media iyo muxuu ahaa kama muuqato Ethiopia haddii muxuu ahaa dawladnimo ay kula hadlayaan Ethiopia ay dad adiga ka tirsan baad halkan ku dhimanaya u kaalay waxbay hayd xataa laakiin taasina ma dhicin laakiin hadalkaas anigu waxaan u arkay oo muxuu ahaa xaqiiqadiisuna ay tahay inuu yahay hadal siyaasadaysan oo muxuu ahaa aan ahayn munaasib ku ahayn dadkaas muxuu ahaa gobolkaas ilaahay dhigay ee isaguba uu ka soo jeedo oo uu muxuu ahaa wax u kala sheego sidaas bay muxuu hadalkaas u dhigay daliil waxa kugu ataa waxa ka dambeysay raxan wasiira oo muxuu ahaa xukuumadda muxuu ahaa siiraahiya ka socday oo muxuu ahaa ka daba tegay wasiirka maaliyadda oo gabadha la yiraahdo Samson iyo wasiirka awqaafta iyo rag muxuu ahaa door caankaasi ay muxuu ahaa uga dambeeyeen waxa weeye af Soomaaliga iyo oraahduba way kala wanaagsan Samson iyo wasiirada meesha tagay iyaguba wax buuran oo ay la tageen oo ay dadka muxuu ahaa wax way yiraahdeen waxaan aanu sidnaa gawaari ambulance oo lagu soo guro muxuu ahaa dadka aan dhaqaaqi kareynin baan wadnaa muxuu ahaa intaba waa la yiri way tiri waxa soo dhan maxaa laakiin muxuu ahaa iyagaba
wasiirka muxuu ahaa maaliyadda oo kale samsam ugama qaadanayno muxuu ahaa lamana aqbali karo dawlad baan ka socdaa muxuu ahaa waxna ma sido oo waxaan sidaa waxaasay muxuu ahaayeen tamartayadii intaasay dhaafi weyday muxuu ahaa waa run ahaantii halkaas waxbaa ku jira laakiin run ahaantii waxaan aad u bogaadinayaa oo aan muxuu ahaa dee waxa weeye qofka wixii uu ku toosan yahay in laga duudsiyaa meesha ma taalo wasiirkaas gabadhaasi waxay tidhi dadkani ama etoobiyaan ha ahaadaan ama somalilander ha ahaadaane waa dad gaajoonayo o dhibaysan laakiin somaliland bay dhex joogaan annagay noo taallaa eeg hadalkaasi labada wasiirka iyo madaxweyne ku-xigeenku sida labada hadal ay isku dhaafsan yihiin bal muxuu ahaa cumar iyo muxuu ahaa dee intii muxuu ahaa caqli u saaxiib ahay dee adiguba waad arkaysaa waxaan samaynayaa maaha mediahay labaduba ku jiraan muxuu ahaa waa la wada dhegaystay intaan dhegaysanina ha dhegaysato run ahaantii gabadhaas waa ku bogaadinayaa af soomaaliga wanaagsan ee ay dadka dushiisa dadka ay dul joogtay oo aan runtii aada muxuu ahaa markaas yani damiirku ii galgalanayay wixii af soomaaligii ay ku dul tiri waan muxuu ahaa waa bogaadinaya okay yani waxa erayo kala way daba dhigtay oo dadku muxuu ahaa may tukan jirin iyo muxuu ahaa sekada may bixin jirin iyo muxuu ahaa iyada lafteeduba waxyaaba noocaasa way daba dhigtay labadaas inta aan ku bogaadinayaana waxa weeye in ay qirtay oo ay muxuu ahaa isdul taagtay oo hadalkaas ay asiibtay in dadkaa gaajoonaya dhimanaya ama etoobiyaan ha ahaadaan ama yayna ahaanina inay somaliland dhex joogaan oo ay ku dhex gaajoonayaan gabadhaasi way sheegtay waan ku bogaadinayaa statementka laakiin waxaanan uga qaadanayn wasiirkii maaliyaddaan ahay dawladda somaliland ka socda waxba caynkaasa ma sido kama qaadanayn iyada ayaa dhaqaalihiiba gacanta ku haysa guddiga abaaraha ayay xubin firfircoon oo weyn ka tahay muxuu ahaa wasiirka maaliyaddu ma hadduu meesha socdo dee in wax yani maaragtay muuqda meesha ay la tagaan oy la tagto waa looga fadhiyey laakiin arrintaasina ma dhicin run ahaantii ma dhicin waxaanan leenahay dee muxuu ahaa isku noqda bini aadamnimadu sidaa maaha dawladnimadu sidaa maaha muxuu ahaa dawladdu markay dhibaata timaado dawlad waxa la yidhaahdo waa lagu cararaa laakiin in laga cararo ama muxuu ahaa dee laba waayo meesha ma taalo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdullaahi saydici iyo wasiirka maaliyadda samson hadallada ay dadka la dul tageen meesha muxuu ahaa goglanaana dee sidaas ayay u kala duwan yihiin run ahaantii aada iyo aad baan uga xumahay muxuu ahaa ninkii muxuu ahaa labaad somaliland muxuu ahaa xukunkeyga hayay oo weliba gobollada kasoo jeeda in hadal noocaasihi kasoo yeedho oo uu weliba dadkii muxuu ahaa jiifay ee dhulka yaalay dushooda ku yidhaahdo run ahaantii wax aad muxuu ahaa u adag ayaan muxuu ahaa anigu u arkayaa gabadhuna afka way wanaajisatay laakiin waxba meesha may keenin muxuu ahaa waana runteed oo kelmadaasi wata meesha taalla oo dee looga baahnaa haddii aanad waxba haynin xataa inaad muxuu ahaa dee kelmadda wanaagsani sadaqadda kama dhacdo ayay muxuu ahaa yaa kolleyba jirta kalimatu dayiba way fiican tahay waxaad moodaa in gobolka laftiisa yani dad badan inay muxuu ahaa fikirkan odhanaya maxaa dadku ay etoobiyaan in aada loo qaadqaadayo waxaan odhan lahay oo gabagabadii kusoo gabagabeynaya yani maxaad ree awdal odhan lahay ree awdal waxaan odhan lahaa gaajadu cid ma leh dhimashadu qolo ma leh nin walba uu dhimanayaa ninkii gaajaysannaga dee muxuu ahaa qolo u leeyahay oo leeyahay dee gaajadu waa qoladaa heblaaye yani maaragtay qolada heblaaye gaajoy u tag ma taalo nin kasta oo muxuu ahaa yani ama fikirkiisa ay ku jirto ama ereygaasi muxuu ahaa aan dhadhaminaynin oo muxuu aha kor u qaadqaadaya waxaan odhan lahaa kadaa muxuu ahaa gaajadu cid ma lehe
gaajadu qolo ma lehe ka daayo muxuu ahaa dadka dhimanaya ee gudaha muxuu ahaa anigu ma odhan karo run ahaantii dadkaasi waa etoobiyaan ma odhanayo xataa hadday ka yimaadeen oo xoolaha kala yimaadeen ma odhan karo waa etoobiyaan sababtoo ah marka qolo la sheegayo qolo marka la sheegayo etoobiya kuwa ka yimid ee la sheegayo iyo kuwa muxuu ahaa magaalada boorama degan waa isku qolo laakiin anigu sidaas uma hadlay yaan loo qaadanin sidaa hadlay waxaan u hadlayaa noocuu doonaba ha ahaado cidduu doonaba ha ahaado gaal iyo muslim wuxuu doona ha ahaado qof dhimanaya oo gaajo u dhimanaya inaan meel ku sheego ama aan cid ku sheego aad baan ugu muxuu ahaa u dhibsanayaa muxuu ahaa wax aan u qaadi karo mansab intaa la-eg iyo mas-uuliyad intaa la-eg nin haya inaan muxuu waxaan u qaadi karo oo aan muxuu ahaa ka dhagaysan karana ma aha arrinkaas waxaan leeyahay dadka reer Awdal marka hore sidaad isugu tashateen ee aad u kacdeen ha u fariisanin ee u sara jooga guddiga abaaraha muxuu ahaa gobolka ama goboladaas waxaan iyagana usoo jeedinayaa in ay nidaamiyaan waxa muxuu ahaa deeq ahaan iyo dadkaa waxa lagu samata bixinayo inay nidaamiyaan oo nidaam u sameeyaan oo ay transparent noqoto oo la arko oo ay muxuu ahaa aad iyo aad muxuu ahaa nidaamkeeda isugu dubaridaan wixii hore iyo inta bilowga iyo sida faj'ada ay wuxuu bilaabmeen waa loo cudur daarayaa waanu cudur daaraynaa waa bini aadam sida iyadoo kale ah muxuu ahaa wax way muxuu ahaa seegi karaan muxuu ahaa laakiin waxaan iyagana usoo jeedinayaa waxa soo gaadhay ama debad ha ka soo gaadho ama dawlad ha ka soo gaadho ama dadka gudaha ha ka soo gaadhay in ay dadka muxuu ahaa abaaraha iyo deegaanada iyo meelaha dadku ku dhibaataysan yihiin intay xoogaal u noqdaan in ay muxuu ahaa u nidaamiyaan waxa soo gaadhay siday u gaadhsiin karaan u wada gaadhsiiyaan halkaad naga daawanaysaan waa Galbeed TV xaruntiisa magaalada Edmonton ee dalka Canada وعاونا ومرتي noogu yahay siyaasiga weyn maxamed cabdulaahi obsi oo ku nool dalka Suudaan oo ka wareysana xaaladda abaaraha ee ka jirta gobolka Awdal intaan ku kulmi doono barnaamijkan oo kala waxaan iga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo amaana Allah